Soomaalida waxaa la yiraahdaa waa dad aad u layaab badan. Suuqyadooda maalin walba waxa ka dhaca sixir barar iyo dhac loo geysanaya danyarta. Soomaalidu waa dad asal ahaan haysta diinta Islaamka kuna dhaqma. Balse waxay diin ahaan oo kale u haystaan qabaliyada. Oo waxa qeyrkood ka reebtay ubadkoodana baabiisay qabyaalada ay u horkacayaan odayaasha, caaqilada iyo salaadinta waqtigan jira. Majaalista ay fadhiistaan haddii mid ka mid uu caayo ama uu aflagaadeeyo diinta ama rabbigiisa ma jiro qof bini'aadan oo ka xanaaqaya ama ka dagaalamaya balse ninka qabiilkiisa wax laga sheego isla markaaba uu ka dagaalamaa balse taasi dhibta hadda jirta maaha dhibta hadda jirta waxa weeyaan dhalinyartii oo koox rag iyo dumarba diinta uga baxaysa filinkan idin soo bilaabay qisada filinka magaaladan waxa ku nool sheekh la yiraahdo Sheekh Idriis Al-Hajari oo aad dunida looga jecel yahay السلام عليكم شقا حرارا مبينا sheekh jiitay oo maxadibadaha ku qabtay maxaadirooyin uu ku jeedinayo luqada kale मैं चला चाहूंगा लेकिन चाइनीज से पहले मैं एक जरूरी बात बोलूंगी अल्लाह की किताबी पढ़ो फैलाओ फिर हिदायत मिलेंगी फिर रहमत मिलेंगी इंशाल्लाह खुदा हाफिज फैलाओ waa sheekh mar walba jecel inuu hadla sidii saxaabada way hadli jireen oo kale اتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وما هذه السلحفاة يا مولاي ونشغلنا إن شاء الله تعالى لا دعني أكلمها اذهبي أيتها السلحفاة ذهابا بلا رجعة ونحن قوم لا نحب الزلاحف هيا إلى الأمام dhanka kale isna waxa jira sheekh la baxay al-Allaama Sheekh Ibrahim Sheekh Ismaan Ad-Dawsi kaasoo mar walba eedeeya Sheekh Idriis Al-Hajari oo kana soo horjeeda Sheekh Idriis waa calmaani dadka ku qaldaya inuu wanaagsan yahay xadiisyada uu inta badan adeegsanaana waa mawduucyo iyo axaadiis daciifa haddii uu run sheegayo waxa ay tahay ha sheego firqada uu yahay saw Sheekh Ibrahim Ismaan dadku kala qaybinaya ilaahay bil hortagi maalinka qiyaamada dadku qolaba wax ku sheegay aniga waxaan hayaa doon ilaahay oo rumeeyay rabbigii qaatina dariiqii rasuulkiisa laakiin Ibrahim Ismaan dadka wuxuu kala firqada uu sameeyay dadka uu kala qaybinay isaga sheegay way iga dhacday haddaba maalmaha kamida waxa magaalada yimid nin la yiraahdo Daniel Abdi oo loo soo xil saaray inuu dhalinta diinta ka saaro برساجة ورياضة استاجة ورها ورياضة الجريد الكاتيني وحشقة ما دايسان waxaan ka shaqeynaa afartan jirnimo wadan ka shaqeeyo baankana wax ka qaatay maad ka soo gashaan diimahan kale aad iskaga jiraysan iyadoo bishaba gaar lacag la iska soo laagay mushaarka marka waxa la soo laagay soo laagay waridka maxay ka galay kiniisada laga soo laagay ee baadiriinta soo dirayeen diimahan marka la galiyo maxaa la iskaga baahan yahay soon iyo salaad iyo sikiyo waxa garanay in ruuxan yiri shahaadada lidin kama baahna salaadna ma tukanaysan kaliya waxaad aaminaysaa in nabi ciise dambigiina u dhintay saasaad ugu jirtaa marka waxay daadaxay gacad haga sayran wax waxan waa shagarada waa la ku sawiraya marka soo gashaan waa sida loo majra habaabiya dhalinteena waxa la siiyaa lagu soo jiitaa lacag yar waxa loo iibiyaa baabuur waxana loo kireeyaa guri yar sidaasi ayaa akhirada loo xumeeyaa haddaba maalmaha kamida ayaa waxa Sheekh Idriis u soo dacwooday waalidiinta xaafadda ee dhalintoodu diinta ka baxday sheekhuna wuxuu kaga hadlay oo uu qodobka ku soo qaatay khudbadiisa jimcaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalayaal qodobadan idinku hayna maanta kuwooda ugu muhiimsan waxa kamid ah Sheekh weynaa Sheekh Idriis Al-Hajari iyadoo ay in badan isaystaan Sheekh Ibrahim Sheekh Ismaan Ad-Dawsi ayaa Sheekh Idriis waxa uu ku qabtay masaajidkiisa khudbad dhan walba taabanaysa taasoo dhaliisha ugu badan saarayo wasaaradda diinta iyo awqaafta waxaana kamid ah khudbadiisa sida tan walaalayaal maanta dhibaatada ugu weyn ee wadankeena ka taagan waxa kamid ah dhalinyartii oo diinta ka baxaysa si walba ha uga baxdo wixii la doonaha lagu carqaladeeyo aqoonadooda lagu shaki geliyo laakiin waxaan idin sheegayaa dhowr qodob oo sababa
waxa ka waalidka oo ilmuhu markuu yar yahay aan diinta ku tarbiyadayn ilmuhu markuu yar yahay waxa loogu tala galay waalidku inuu uga sheekeeyo dadkii uu ku dayan lahaa ilmaha yar markuu weynaado nabigiisii asxaabtii oo ilmaha yar markuu seexanayo looga sheekeeyo markay yar jaanis hayso uu hooyadii yiraahdo ama aabihii waalidkii uu ka dalbaday in loo sheekeeyo uga sheekeeyo si ilmihi yar uu diin jacayl ugu soo koro oo uu xasuusnaado laakiin taa bedelkeeda ilmihi yar maxaa lagu seexinaya dhagdheer butti dacaw ilmihi yar indhaha inta ka dhigay waswaasa seexanaya dibigiisuba يعني waxyaabaha keenay qofku inuu diinta ka baxo ama uu iimaankiisa ka shakiyo waxa kamid ilmihi yar oo waalidkiisa su'aal la noqdo diina oo markuu ilmihi yar su'aal diini waalidkiisa weydiiyo inta ugu badan waalidkeenu maxay ku dhahdaan wariya waxa soo galay dadka lama weydiiyo saas oo kale lama fikiro diinta dhanka la iskama weydiiyo qofka diinta si dhex kala uu ku waasha ilmihi yar marka muxuu qaadanaya qofka diinta si dhex kala uu ku waasha hadhow toolad keer badan ma si siinay salaadii soonka dhaafin maayo hadhow intaan uu iska joojinay يعني ينقى قدوة نقص قناطي يدي شيء نقص قناطي نبي محمد مركو وحشة جيد تكسيتو وشيء كتير تدع الرابية وحكي من شرين أمر رمية وحكي من شرين تولوين قالكم نبي بتشوفه أنت وشرته مساج جي سوق لي شرين صفوا البوي كسو ثلاثين شرين تبدأ النبي كوي من شرين أنكم فرديا سؤالكم بلا بشرين وحين يدو دكتور دعوة ويدين شرين نبي بيسوق قصلية أو دول عطينية أو الدجن أيوة شواب شرين إنك ما هذا سمعت واحد مددين تين لقوا بري iska caabina far laata ka saacado iyo dagaal yahan shabaab diintu waa naxariis waa deganaan yani qofkii wuxuu qof kasta su'aal isweydiin kara diinta wax walba uu iska weydiin kara laakiin in laga jawaabo oo la shaki saaro oo sida ugu saxsan loogu jawaabo fiican ninkaas nabiga markuu dadkaas u yimaadaan iyagoo faraxsan bay ka tagayeen oo raaliya yani bala dulqaadka nabigu marka qaar dulqaad misaajka isagoo ninku kaacay أي مركز أصحابته كأني سيلادين كقبت يوني بمحول يسكت داي هذا ما يستي بلا إلى هوني بما أنت مساجد كنا نموكو كاتش مرة واحد يسوق كده دلنا عاد كده دلنا بلوي منله يسكت داي داي اللي راي هذا ما يستلا راي نقاط يحقوني قتلي إني نقطة يعني يا ناس بنات مين نقطة يعني النبي محمد يعني والدكم المي يصير مركو الله صاحبه المي يصير وحكا قاطع المي يصير وحش شيء كره المي حتى والدك يسوق كراسه نقون يا وحى وقرشين يا وحى ودونيين وقبته هدو سحسين هنا واتسحيسا هدو قلدمان واد كجوجينيسا لكن marka tirada waalid baa caruurtuna gud baan la dhex taaganahay inaga waxaad muddo waalidkii lagu tarbiyadeeyay caruurta waxa lagu tarbiyadeeyay quwad iyo xoog iyo cunfi maada naxariista dadkan xaqiiqo tagtay يعني دينتا حتى marka qofka wax la weydiiyo ama sheekh wax la weydiiyo ama qof wax la weydiiyo qofka in la qabsado isaga taa la raaca ma way qofka miskiinka su'aal buu ku weydiiyay nabiga ilaahay kulaha walaw kunta faddan ghalid alqalb lam faddu min hawlik hadii hada hal haydan qof dhaqan xun oo qalbi adag oo qalqalafsan agtada way ka yaaci lahayn badadkeena adigu qofka marka tura diinta su'aal la iska weydiiyo marka ku tiraado waxaas ku lagu sii waashaa diinta dad si dhex gasho ilmihi yar muxuu u qaadanay waxyaabaha kale kamid waxa kamid waalidkii burburku kala dhaco kala taga ilmihi yar ay gooni u baabaa waxa kamid wax barashada loo dhigayaa ilaa heer secondary oo 8 iyo 9 ardayda loo dhigayaa maadi waan diintoodii waxba laga bareen waxa kamid faqriga oo ilmihi dhalinyarta markuu wadankii shaqo ka waayo ee uu waayo wax uu ka shaqeeyo waxa loo soo iskaleeyaa dhankii maadiga ama xaqi lacagta loo soo iskaleeyaa oo lacag baa lagu soo jiidanayaa lagu shaki gelinayaa iimaankiisa maanta waxa kow ka ah oo kaalinteedii gabtay wasaaradda diinta iyo awqaafta waa inay ogaataa kiniisaduhu inay dagaal kula jiraan si ay dhalinyarteena u burburin lahaayeen oo ay sanad walba intaasoo malaayiin oo dollar ama bilyan oo dollar ay ku khasaariyaan si ay dadka u soo jiidan lahaayeen iyo caqiidadooda u soo gelin lahaayeen iyo waxay aaminsan yihiin diinta islaamkana ay burburin lahaayeen wasaaradda diinta iyo awqaafta waxaa looga baahnaa inay wacyigelin ka samayso yani maalin walba waad arkaysaa khudbad ama maxaadiro lagu talagalay xujaydo kaliya waad arkaysaa khudbad lagu talagalay ama maxaadiro lagu talagalay dadka Sooma dumarku kaliya lagu talagalay dadka heesaha dhageysta lagu talagalay maxaa maalin loo arki waayay maxaadiro lagu talagalay dhalinyarta oo inta garoon sheekh loogu balamiyo ama masaajido ama TV-da 4 saacadood wacyi looga sii deyn laayay dhalinyarta diinta ka baxay wax loogu sheegi laayay wanaaga diintooda loogu sheegi laayay waxyaabaha ku kalifayeen diinta ka baxaan iyo waxyaabaha loogu soo hoos dhuumanayo loogu sii sheegi laayay wasaaradda diinta iyo awqaafta way qabtay maxay wasaaradda diinta iyo awqaafta ka shaqeysaa inaga ma laba cishay noo shaqeysaa maalinta roob doonta iyo maalinta bisha Rabadaan baa 10 sheekh loo xil saaraya oo loo leeyahay 10 sheekh baa ilaalinaya bisha maxaa laga ilaalinaya dayacaan bisha maxaa laga ilaalinaya ilaahay baa shaqo ku leh ilaahay baa soo saaraya wadamada muslimiinta oo dhan kii laga arkay inta kale way ku soomaysaa
tobanka sheekh meeqa bisha soo saaraya miyaanay ka qurux badnayn intaasoo hawla la gelayo intaasoo waxaan waxba ka jirin amaba yacni aan wax ahmiyadoo saas lahayn la hawl saarayo dadkii loo dirsaday ee ay u haayeen wasaaradda diinta iyo awqaafta inay diintii ka baxaan dhalintoodii oo diintoodii iyo caqiidadoodii fasahaad lagu abuuro oo shaki lagu abuuro wasaaraddu haddii aanay fulin karayn oo aanay qaban karayn wixii loo doortay 2 cisho sanadkii shaqaynayso khalaas magaca iska bedelaan ha ku qortaan wasaaradda bisha iyo roob doonta وين وسارته ما أنت دين تدق قاري ملها قف كستوى مسلم واجب كسارا دين تهينو إلى عليه أنتوا كقرني تدك وكقارسيو ما أنت تضح شكتم حلو ودورانية دين أنا أقوم الحين بسكو قاضي بدأ أنا قرني بسكو قاضي ورا نجوا واحد ودي شيكنا دين تدي كمان أقوم بدني علماء أنا كمان نقانو لكن واحد يشيكنا سيدي واحد يسكو فهنسية أنت أصلا شيخ عالم ما أو واحد قرنية أيام هذا نقف كريه تجاهل زاري كريه وحش شيء كريه يعني ما أنت عندك واحد كنت أقول هاي هذا حتى هل آيات قرن ثاني يقارسي حديث كيها بلقوا عني ولو آية ما أنت حنا خليت هقولنا أنت نقرنا إنه دي شيء ما تذكوا قل طبعا نبي يدا قل دمي أو إلهي عنني القرآن كيسوي كسحي قفل بو قل تمكره إن لقوا قيلية قفة أو هريرها لقب صدام ما قفك بنادم كوسواس لقليه ما قفك وين محلاش شجع بلا إنك واحد مدين حكا قبصك يا اسكتك تذكرين أياد مدين دين تبا إنه كقاعدة حكا قرنا هذا حرته قف كسوري يسكبح قف كريستانا كسور قف سنة كسور شوكولاتة يرد عن استرادة شوكولاتة دون فار بالك اسمه وحول من نروش تجيب جد وسواس في تدفع كده كده ما أنا حريستي وحس كشاكي وناكي يعني أنا ما أنت محن كسيوية مرول بمحن دين شاكي يا جمعينا مرول بوحن كسيوية أوني دين شاكا ونفر الله تكسع دين وعدية وأشيل كسوك عيا دد كيمي كتشوكا وين رافين لما قبان كره وإحنا لو مش شاكي كره dadka imika soo kacaya waxaynu ku barbaarino aynu gashano baynu helayna dadka biriina qabsan doona dadka 15 sano ka bacdi ama 20 sano ka bacdina qabsan doona ayaan maanta ka soo halka u taagna waxaan idinkaga tagaya in khudbadeena jimcaha ku soo khatimaya awlaadeena diinta aynu baro awlaadeena dhaqankeena aynu baro say biriina anfacaan diintoodii caqiidadooda aynu ilaalino waaqim الصلاه هذا بك بعد قطبتي وجدي شيخ إدريس الحجري لها يكرر لي هذا وحكى سو جوابي أن وحكى ويديني شيخ وينايا عالم كها العلامة واسم نفتي سكون مقعابه شيخ إبراهيم شيخ عثمان الدوسي وحنا كملها هذا الذي سيستطن وهذا اليوم عاطفة ولتاغي هي مساجدك شيخ حجري ومرن هبابين وسارد دينتي أوقافتنا شقكم الله وحا وشيغيو وساردها كله أي لا سمنتهاي marka kaliyana waa caadif haddaba inta aan khatimin warkayga maalinimo waxaan maalin walba saad nooga barateen idin soo qaadanaa laba qof oo kamid ah faalloodayaasha ama daawadayaasha warka oo faalladooda nooga taga xagga hoose haddaba daawadahan magaciisa ku sheegay aadan xasan cabdilaahi wuxuu leeyahay wax walba dawladdu ha qaadata buu leeyahay dhulka cashuuraha iyo caawimooyinka intaba gaajo waanu ku noolaan karnaa buu leeyahay laakiin hanti waxa noo hadhay oo kaliya waa diinta ogolaan maynayn diintana laga carqaladeeyo dhalintana laga waswaasiyo wasaaradda diinta iyo awqaaftu waa in isbedel degdeg ah ka samaysaa arrinta daawadaha kale isna magaciisa soo gaaraya waxa uu ku sheegay magaciisa maxamed cali diiriye waxa uu yiri ma aha wasaaradda diinta iyo awqaaftu inay soo bandhigto wax qabadkeeda oo ay akhrido waxyaabo badan oo aanay dadku ogsoonin laakiin taa bedelkeeda waxa ka fiican buu leeyahay waxyaabaha ay wasaaraddu qabatay inay dadku ogsoonaadaan iyadoon soo bandhigin wax qabadkeeda wasaaraddu waa inay sida wax ka bedeshaa haddaba daawadayaal waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo عقبات الغريب وكل حد عقبات الغريب ليس ولا حاضرين حجي ليس لا عين وكل حد عقبات الغريب حجي ليس لعين وحوين مرورتو إليو وريديو حاجة دعموي محرا لقوي وحوين مرورتو إليو وريديو